suubiyaan waxa loo yaqaano inaan cadaado la soo marin oo cadaado isbaara la dhigto waa go'aanada ugu dambeeyay go'aankoodu qaatay 8 saacadood markay wada fadhiyeen kadib waxay go'aansadeen in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Xaaf Ducaale madaxweynaha Galmudug inay marin magaalada Cadaado haddii Cadaado uu maro Farmaajo iyo Xaaf Ducaale taasi waxay noqonaysaa caasimadii beenbeenta ahayd oo la dhoobayay oo loo yaqiinay Cadaado inay halkaas ka baxayso caasimada runta ahayd siday ahayd ba ahayd ay dhuusamareeb noqonayso ee Galmudug kadib go'aankaas oo cuntumo reer Cadaado la wada u talamaanta laba go'aankoodii inay mataqaanaa Farmaajo hor istaagaan iyo Xaaf Ducaale laakiin su'aalo badan aan isweydiino su'aalaha badan aan isweydiinayno reer Cadaado ma hor istaagi karaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Xaaf Ducaale oo gaalkacyo ciidamo xoog badan ay ka soo baxayaan 300 oo gaari ma hor istaagi karaan reer Cadaado su'aasha meesha taagan waxa waaye reer Cadaado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xaaf Ducaale hadday dhaafaan ay dhuusamareeb gaaraan caasimadda ay ku riyo jireen halka bay ku dhamaatay halka ayuu mataqaanaa waxay noqonaysaa nin riyooday oo riyada ay ka dhamaatay laakiin maxaa talo reer Cadaado waa su'aalo badan la isweydiino anigu talada aan siinay reer Cadaado waxa waaye caasimadda saxda ah oo mataqaanaa dastuurka ku qoran oo galguduud waa magaalada dhuusamareeb marka waxaan dhilahay optionka aan siinayo waxa waaye reer Cadaado ama talada aan siinayo inay soo dhaweeyaan mudane Xaaf Ducaale iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nin wato 300 oo technica ma hor istaagi kartid shacabkaada ka nax magac iyo ka tagin marka waxaan leeyahay shacabka qof kasta oo mataqaanaa oo idaawanayana waxaan leeyahay fakirkaagu waa muhiim inaad dhibato because programka wax yar baa nooga haray waxaan risiinaynaa dhowr qofood baan rabnaa inaan siino fakirkooda inay dhiibtaan ay mataqaanaa qof kasta oo muwaadina oo doonaya fakirkiisa inuu dhiibto waan soo dhaweynaynaa maasha Allah qof kasta oo dhiibanayo oo ka soo jeeda maamulka Galmudug soo aragtaa magaalada Cadaado in la dhigto isbaaro waa arrin muhiim ah waa arrin ay u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed waa arrin ay u baahan yihiin mataqaanaa in la ogaado laakiin waa inaan ogaanaa dadkayaan la qaldin dahaba calasow yaan la dhageysanin dahaba calasow wuxuu ka dhigayaa shakada in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga soo horjeedo laakiin dahaba calasow waa nin calooshu shaqaysta ah dahaba calasow waa nin aan waxba garanaynin dahaba calasow waa nin qol kamida qolalka hore ku xiran marka dahaba calasow yaan la dhageysanin shakadani waa shaka dheer waa shaka mataqaanaa soo soctay waa long story in Cadaado ay ka hormaato Farmaajo iyo Xaaf Ducaale waa shaka dheer waa shako u baahan in mataqaanaa la daba istaago waa shako u baahan in mataqaanaa ay ahayn qabiil anigu ma ku tilmaamayo shakada ka saabsan Cadaado inay tahay qabiil Cadaado waxa arkaa shacabka ku nool Cadaado reexad islaaman inay doonayaan magaalada in noqoto caasimadda Galmudug wax macnaha si sharciyan way dagaalamayaan waxay doonayaan magaalada in noqoto mataqaanaa caasimadda Galmudug laakiin dahaba calasow waxay kaaga dhigay qabiil baa kacay no qabiil ma kacin tani waxa waaye self interest magaalada doonayso inay soo bulsho interestigeeda iyo dareeda gaarka ka fikirto laakiin dastuurku xad gudbayso yaan la dhihin qabiil waaye marka Xaaf Ducaale hadallada iyaabkoodna waxay ahayd half down Farmaajo down half down Farmaajo down macnaheedu waa maxay macnaha pointigu waxa waaye muhiimaddu waxa waaye in Farmaajo iyo Xaaf Ducaale ay gelin magaalada dhuusamareeb hadday dhuusamareeb uu tago ninka la Farmaajo iyo Xaaf Ducaale Xaaf kuma soo laabanayo mataqaanaa Cadaado keeskeeda waa la xirayaa Cadaado wuxuu noqonayaa keeskeeda Ingiriisku waxa uu dhaho call case iska qaboobay oo lagu kala tagay caasimad inay ahayn baa lagu kala tagayaa marka shacabku taas la ogaado shacabku waxaan u sheegayaa Galmudug waxaan u sheegayaa inay ogaadaan arintaasi inay naqanayso call case iska dhamaaday laakiin haddii wax la raadinayo Cadaado wax la raadinayo anigu waxaan u sheegayaa mudane Xasan Cali Khayre waxaan leeyahay Galmudug ha laga dhigo xurunta ganacsiga Cadaado
xaafid ducaale waxaan leeyahay xurunta ganacsiga ha laga dhigo cadaado waxay doonaysa waa dhaqaalo marka madaxweynaha galmudug mudane xaafid ducaale anaa mataqaanaa aqbari gaarsiinayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre anaa fariin gaarsiinayo in cadaado ay noqoto xuruntiga ganacsiga cadaado ay noqoto meel lagu ganacsado oo dhaqaalo soo galo taasi anaa ballan qaadayo laakiin shacabka cadaado anigu waxaan leeyahay saan wax looma raadiyo caasimadda waa laga guuri karaa kumeel gaar ba ahayd ma ahayn caasimad oo mataqaanaa oo ahaa jirta ma ahan temberary kumeel gaar waaye marka dahabo calasow idinka waalin dad shacabka waxaan u sheegaa dahabo calasow idinka waalin laakiin odayaasha reer cadaado siyaasiyiinta reer cadaado nimanka mataqaanaa dhaqaalaha le reer cadaado waa ogyihiin waxay ka dagaalamayaan waxay u qaylinayaan waa ogyihiin marka waxaan leenahay shacabka waxaan u sheegaynaa ha laga shaqeeyo wanaagga ha laga shaqeeyo horumarka ha laga shaqeeyo mataqaanaa waxyaalaha loo baahan yahay qof kastoo doonayo inuu fakirkiisa dhiibto waana soo wici karaa maasha allah shacabka waxaan u sheegaynaa horta aan ka shaqeyno wanaagga aan ka shaqeyno isku soo dhawaashaha aan ka shaqeyno system iyo soomaalinimo let's talk about system muxuu yahay wanaag iyo dowladnimo alo asalaamu calaykum aad iyo aadaan ku salaamayaa waxaan ka hadlaynay magaalada cadaado oo mataqaanaa buuq badan ka soo kacay oo doonayo inay si naqato caasimadda galmudug laakiin dastuurka caasimadda galmudug wuxuu ku qoran yahay dhuusamareeb soo aragta arrinta noocaas waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrin qaldan dadkana shacabka lagu dhalan rogayo arrintaanu wax badan bay soo jiibsamaysay dad badan baa ogaa oo reer galmudug ama ummadda dhan way og tahay caasimadda galmudug waxa weeye saan haddaana khaldanayn waa dhuusamareeb sax waa dhuusamareeb caasimadda galmudug sharciga cadaadu waxay ahayd kumeel gaar cadaadu caasimad maaha dad badan baa mataqaan lagu maraxaabinayaa maanta waan u jeeday aan kaa dhexgalo cadaadu aan kaa dhexgalo saan ognahay galmudug iyo maamulka gobolada dhexe deganaay dhuusamareeb iyo gurceel uu u hayay madaxweyne sheekh saakir oo heshiiyeen heshiiskii markuu dhacay mataqaanaa galmudug iyo gobolada dhexe sheekh saakir kadib waxaa lagu heshiiyey maamulka galmudug inuu guuro cadaada ka guuro oo u guuro dhuusamareeb sheekh saakir oo ogolaaday inuu noqdo ra-iisul wasaare shacabkii deganaayay cadaado gaar ahaan beesha reer xaaji salaaman oo doonayay cadaado inay sii ahaato caasimadda galmudug laakiin dahabo calasow ama daahir calasow saa u taqaanid ayaa ku qaldayay shacabka soomaaliyeed iyo dad badanoo masaakiina ku qaldayay inay kacday beeshii habargidir may kicine waxaa kacay waxay ahayd maanta cadaado gubaaye dana kaloo gaara farmaajo cadaado lagu soo dhaweeyey laakiin arrimaha kale laisku qarinaya waxaa waaye arrinta laga soo horjeedo waxaa laga soo horjeedaa xaafid ducaale inuu tago dhuusamareeb iyo madaxweyne farmaajo kadibna cadaado kadib sidaan dib loogu soo laaban arrimaha noocaas maxaa leedahay arrimaha noocaas waxaan leeyahay shacabka reer galmudug waxaan leeyahay niyo sheekada dhegeysanina waa sheeko farsamaysan madaxweyneheena soo dhaweeya arrintaan oo weligeed bay socotay casuumadna ma noqonayso meesha loo cadaado ha ku riyoonina ana ku seexanina ana kusoo toosina dhuusamareeb baa inay noqonaysa markasta magaala madaxweynehana soo dhaweeya aan leeyahay sheekadana shacabka reer galmudug madaxweynahooda way jecel yihiin inay soo dhaweeyaan way jecel yihiin sidaan ogahay anugu laakiin sheekadan waxaa wataa daahir calasow ninkaa laleeyahay munaafiqa oo rabaa inuu habar gidir ama hawiyo dhantuu qol kusoo xaraysto inuu mataqaanaa suu doono ka yeelo marin habaabiyo hadhegeysinna han raacinaa leeyahay ma garatay sheekada hadhegeysinna madaxweynena soo dhaweeya dadkii boodboodayo jeexjeexayay sawirka madaxweynahana just dee dhowr qof bay ahaayeen oo dad badan ma ahayn maya laakiin haddii waraysigaas aad dhegeystay waxaa kamid ahayd ayagoo dhahayo farmaajo down half down madaxweynihii galmudug waxa down loo dhahayo iyo farmaajo down loo dhahayo bointigeedu waxaa waaye cadaadaha la joogo marka ugu dambeyntii shacabka galmudug maxaa u sheegaysaa shacabka galmudug waxa uu sheegayaa inay ka waantoobaan waxay samaynayaan inaan dhegeysanin waxaan wax lasoo maradhaxmaamina weyo oo daari calasow iyo rag badan kasoo shaqeeyeen madaxweynihiina jeclaada xaaf waa nin libaaxa anugu aan taageersanahay anoo reer puntland aan taageersanahay waa nin odaya waa nin wax ka go-an waa nin inuu hogaamin karaa intii qof inuu hogaamin karo
ninka la shaqeeya madaxweynahana soo dhaweeyo waa madaxweyne Soomaaliyeed dhageysanina waxaan ay wadaan daaracad soo xulfadiisa dad bayn ku ridayaan wax fiican isu jeedinaya meel fiican wala maaha marka waxaan leeyahay arinta laga laabto si uu rasiya badan shirkadan reer galmudug hadda jeeyay kala reer galmudug maahana waa qof ka mid ah ayano wax qaldan kala dhacsan ma garatay oo video qaldan daawada ma garatay marka waxaan leeyahay ka wanto ma garatay aad iyo aad oo maastay waa kaga mahad celinaa warkaaga waa ku salaam assalaamu calaykum shacabka waxaan u sheegayaa qof kasta oo doonaya fikirkiisa inuu dhibto waana soo wici karaa aad iyo aad u mahadsan yahay fikirkaaga waa muhiim inaad dhibato waa muhiim qof kasta oo muwaadina oo fikirkiisa dhibanayo waan soo dhaweynaynaa anaga shacabkeena marka waxaan u sheegaynaa dhinaca facebooka ayaad naga soo wici kartiin dhinaca facebooka ayaad naga soo wici kartiin baan idin leeyahay dhinaca facebooka messengerka ayaa iga soo wici kartiin halkaa laga soo waco qofkii doonaya ha isoo waco ama qoraal ha soo qoro ha isoo waco dhinaca mataqaanaa facebooka messengerka waxaan doonayaa inaan qaado two more call laba qof badan doonaya inaan ka qabto markaas kadibna waxaa waaye programkeenu waa gabagabo qof kasta oo doonayo fakirkiisa inuu dhiibto ha soo daahin soo dhiibo maasha allah laakiin shacabku waxaan rabnaa inaan ogeysino galmudug inay tahay system u taagan dowladnimo galmudug waa ka weyn tahay calooshi u shaqayste dahaba calasow cunuga xunka oo qolka ku xiran holm waa ka weyn tahay dhowr qof intuu ka dhaadhiciyo qabiil oo wax ka dhaadhiciyo war dahaba calasow taariikhdiisa waa la yaqaanaa dahaba calasow qofkii doonaya taariikhdiisa inuu barto tawfiiq isbaara u tille meelo badan waxbaa u yiilay dahaba calasow waa nin soo daalay magaalada muqdisho tawfiiq nin kastaa garanayo waa laga garanaa 93 94 si fiican baa looga yaqaanaa dahaba calasow xamar waxay ka soo carartay 1996 dhamaadkiisii marka dahaba calasow waa ninka noocaas marka dahaba calasow taariikh ma hayso dahaba calasow nin wax og ma ane shacabka mataqaanaa oo qabiilka galay oo mataqaanaa qabiilka maskaxda ka galay ka dhamaada Soomaaliya maanta system bay qaadatay dowladnimo bay qaadatay wanaag bay qaadatay isku soo dhawaasha la maraya adeereer waxaan leeyahay kulligiin soo qora FIFA farmaajo FIFA xaaf ducaale madaxweynaha galmudug mudane xaaf ducaale shacabku waxa uu sheegaya intaas ma uu sheegaya meel kasta joogtiina wanaaga ka shaqeeya isku soo dhawaashaha ka shaqeeya because waxa waaye maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay system dal aan lahayn system waa dal aan sharci ka jirin taas waa inaan dareennaa aan mataqaanaa shacabka ay fahmaan shacabka ay ogaadaan shacabku ay dareemaan marka anigu waxaan idin leeyahay ka shaqeeya wanaaga ka shaqeeya isku soo dhawaashaha ka shaqeeya in dalku uu gaaray meel wacan iyo system wacan iyo wanaag ha laga shaqeeyo wanaaga marka waxaan idin leeyahay galmudug waa israacday mataqaanaa caasimadda dhabtaana waa dhuusamareeb galmudug waa israacday caasimadda dhabtaana waa dhuusamareeb halkaan aan ugu baxno galmudug iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ku soo dhawaada galmudug 100% marka waxaan rabaa intaan ka bixin programka inaan hal mar aan ka hadalno taariikhda mudane xasan cali khayre waa maxay khayre waa nin dalkani meel badan gaarsiiyay mudane xasan cali khayre markaan ka sheekeyno muqdisho iyo systemka iyo wanaaga iyo kala dambeynta waxaa keenay mudane xasan cali khayre wuxuu noqday prime ministerka ugu horeeyay ee Soomaaliya isku keenay shacabka khayre wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay ee shacabka isku soo dhaweeyo khayre wuxuu noqday ninkii dadka isku keeno khayre wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay la xisaabtama wasiirada khayre wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay ka soo bixiyay muqdisho system la dhahayo mataqaanaa amniga magaalada muqdisho fulinta ama xasilinta muqdisho u taqaaninba muqdisho wuxuu ku soo rogay waxa la dhahay marshal law khayre wuxuu noqday ra'iisul wasaare ugu horeeyay ama shakhsigi Soomaaliyeed ugu horeeyay ku soo rogay magaalada muqdisho waxa la dhahayo marshal law kulligii soo qoraa
فيفا غير فيفا غير فيفا غير ادعي رئيس الوزراء دادير ادعي رئيس الوزراء هو قنت بدن شعبك الصوماليين ادعي نيك ugu naxariista badan shacabka Soomaaliyeed so far inta ogaa aniga mudane Xasan Cali Khayre waxaan ku ognahay asagoo magaalada Turku joogo hooyo Soomaaliyeed inay ku dhagtay inuu jeebkiisa gacanta geliyay Khayre waa nin deeqsiya Khayre waa nin baarkiisa u jilicsan yahay Khayre waa nin dareemayo qofka bini'aadanka weak pointigiisa iyo daciifnimadiisa iyo dhibaatadiisa dareemayo waa Khayre Soomaaliya waxay u baahan tahay mudane Xasan Cali Khayre oo kale Ilaahay baa u soo diray because Khayre ka hor may jirin Soomaaliya qof walba wuxuu wasiir kasto wuxuu cuni jiray lacagtu helo wasiir kasto shaqadiisa ma qaban jirin before Khayre Soomaaliya waxay ahayd dark mugdis aw taqaaniinba kulligiin soo qora fifa Khayre nabad iyo nolol Soomaaliya asraacdo fifa farmaajo fifa Khayre waan idin salaama meel kasta joogtiin waxaan idin leeyahay wanaagga ka shaqeeya isku soo dhawaashaha ka shaqeeya nabad iyo nolol u duceeya galmudug u duceeya maamulka galmudug u duceeya maamulka galmudug inta dhibaatada nacimna waxaan leenahay qalbigooda Ilaahay ha waasiyo inta xumaanta jecelna waxaan leeyahay Ilaahay ka saaro inta xumaanta jecel oo qabiilka jecel oo maskaxda ka jiran Allah caafiyo kulligiin waxaan leeyahay Soomaaliya meel kasta joogtiin kulligiin wanaag ka shaqeeya fifa Khayre waxaan idinka tagayaa salaanta muslimka salaam calaykum